waa halbeegga wararka iyo warbixin degdeg ah oo aan ku eegi doono xasan sheekh maxamuud oo dacwad u gudbiyey shariif sheekh axmed xilli dagaalka galmaax yuunis ay ku hayaan dowladda xasan sheekh maxamuud uu sii xoogaysay. haddaba maxay tahay dacwaddan loo gudbiyey shariif sheekh axmed iyo xubnaha eedaynta culus uu u jeediyey xasan sheekh maxamuud? warbixintan ayaan ku falanqayn doonaa saaxiibayaal, iyo sidoo kale wararkii ugu dambeeyey Siciid Dani oo iska diiday in Muqdisho yimaado si shirka dowlad goboleedyada dowladda federaalka ah uga qayb galo. xaaladda oo markan meel halis ah maraysa iyo wararkii ugu dambeeyey imaanshiyaha Axmedoobe ee Muqdisho ayaan ku eegaynaa warbixintan. balse marka hore sii sheergaree muuqaalkan oo leegna saar, kuna soo biir boggeena Facebook ee halbeegga wararka si aad ula socoto wararka iyo muuqaalada halkan aynu ku baahino. waa hagaag aynu ku horeyne. xasan sheekh maxamuud ayaa dacwad u gudbiyey shariif sheekh axmed xilli xaalad culus ay taagan tahay. madaxweynaha Soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa la soo sheegayaa in uu kulan idaa u xirnaa la yeeshay dhowaan xubno ka tirsan xisbiga himilo qaran ee shariif sheekh axmed uu hoggaanka u hayo. kulanka oo ka dhacay hoyga shariifka ayaa ugu horeyn madaxweyne xasan sheekh maxamuud waxa uu tacsi ugu tagay shariif oo hooyadiis xasna cabdulle isxaaq dhowaan ku geeriyootay dalka imaaraadka carabta laguna xabaalay quburo ku yaalla gobolka shabeellada dhexe. xubno ka tirsan villada ayaa la socday xasan sheekh kulanka uu sheekh shariif la qaatay oo arrimo xasaasi ah sidoo kale lagu soo hadal qaaday. xasan waxa uu sheegay inuu ka raaligelinayo shariifka iswaayadii kadib xilka madaxweynaha Soomaaliya loo doortaas oo ku timid buu yidhi howlo adag iyo dowladda cusub dhisideeda oo meel sare gaartay. sida ay inoo sheegeen xubno ku sugnaa kulanka, madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa culeysyada ka soo kordhay magacaabista gudoomiyaha gobolka banaadir madaale ka dalbaday in shariif uu xal ka gaaro kheyradhaanta beesha galmaax yuunis oo dhaliishay magacaabidda madaale arbacadii loo dhiibay xilka duqa iyo gudoomiyaha gobolka. xasan sheekh ayaa dhanka kale ka codsaday shariifka inuu ka hortago isbahaysiyo mucaaradeed oo ay awilayaan xasan cali kheyre iyo xubno hore uga wada tirsanaa golihii midooda musharaxiinta. ku darso oo shariifka xisbigiisa himilo qaran boosas wanaagsan lagama siinin dowladda cusub marka laga reebo dhowr jago oo qaarkood ay liiteen, sida wasiiru dowlaha wasaaradda arrimaha gudaha oo Ilyaas Cali Xasan loo magacaabay. warar kale ayaa sheegaya in xasan sheekh uu helay macluumaad hoose oo tilmaamaya in dowlad goboleedyada iyo siyaasiyiin reer Muqdisho ah ay abaabulayaan mucaarado xooggan oo dowladdiisa lagu soo wajahan yahay, sidaas awgeedna uu shariif kala shaqeeyo fashilinta qorshooyinkaasi. lama oga sida uu shariifka ugala shaqayn doono xasan sheekh maxamuud oo ku casuumi waayay wadatashiyadii la filayay ee dowladda cusub, maadaama ay isku aragti ka ahaayeen ama ay aad isugu dhowaayeen dagaalkay la galeen farmaajo. waxaana xasan sheekh lagu eedeeyey in dowladda cusub uu xisbigiisa UPD ka wada safay xilalkii ugu muhiimsanaa. xogaha kale ee la helaya waxa ay tilmaamayaan in shariifkii xasan sheekh maxamuud loo ballamay kulamo kale isla markaana isfaham laga gaaray waxyaabihii laga wada hadlay, walow ay ka gaabsadeen in warbaahinta la wadaago xogahaas ama kulankaas dhex maray shariif iyo xasan sheekh maxamuud. dhinaca kale, Dani ayaa diidan inuu ka qayb galo shirka Muqdisho ka furmaya xilli Axmedoobe uu Muqdisho soo xaadiriyey. madaxweynaha Puntland Siciid Dani ayaa hadda soo qadimay cudurdaar uusan u safri karin magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka, isagoo aan sheegin sabab macquul ah oo ku aadan ka baaqashada shirka dowlad goboleedyada dowladda federaalka ee Soomaaliya. Dani ayaa toddobaadkii u dambeeyey dadaal badan gelinayay sidii ay isugu iman lahaayeen madasha watashiga qaran, isagoo fulinaya heshiis hoosaad ay Garowe ku soo gaareen madaxweynaha Soomaaliya xasan sheekh maxamuud. sida ay noo xaqiijinayaan ilo wareedyo ku dhow Siciid Dani waxa uu sheegay madaxda dowladda federaalka inay arrimo badan u yaalaan Garowe, uuna shirkan oo loo maalmood ah kaga qayb geli doono aaladda fogaan aragga ee Zoom-ka, taas oo qaar ka mid ah madaxda dowlad goboleedyada ay si weyn saluug uga muujiyeen. haddii Siciid Dani shirkan ka baaqdo waxay ka dhignaanaysaa inuu saluug weyn ka qabo sida madaxda federaalka u fulin karaan wax kasta oo lagu heshiiyo. hanaanka maqnaanshihiisa ayaana ka dhigan inuusan ku faraxsanayn qabsoomidda shirka ka dhacaya gudaha magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya. dhankiisa hogaamiyaha maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmedoobe
ayaa maanta soo gaaray muqdisho si uga qayb galo shir dhowaan ay yeelan doonaan madaxda dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalka Soomaaliya. wasiiro ka tirsan xukuumadda xildhibaano ka tirsan labada qal ee baarlamaanka ayaa garoon ku soo dhaweeyay xilli Axmedoobe iyo wafdigiisa muqdisho ay soo caga dhigteen. sidoo kale Axmedoobe ayaa waxaa la sheegay inuu hoos u dhigayo khilaafkii iyo loolankii siyaasadeed ee kala dhexeeyay bila Soomaaliya kadib ku darashadiisii muddada halka sano ahayd ee muddo kordhinta uu sameystay, taasoo uu rabo inuu ku xalaashado Axmedoobe isagoo u dhowl cadeynaya Xasan Sheekh Maxamuud iyo tiimkiisa. balse lama oga waxa ay ka wada hadli doonaan Axmedoobe Xasan Sheekh Maxamuud ka hor intuusan furmin kulanka dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada. daawada fikirkaaga iyo waxa ay kula tahay ku reeb qaybta commentiga tan iyo kulan dambe nabadgelyo.